gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Mudane Maxamed Maxamuud Yuusuf Babaxle maanta shir jiraad ku qabtay gudaha magaalada Burcaya waxa uu guud ahaan hambalyo u diray ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaanu ku hambaliyay munaasabada iyo faraxa Ciidul Fidriga waxaanu sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Babaxle uu ka hadlay guud ahaan xaaladda guud ee gobolka Togdheer waxaana hadaladiisii ka mid ahaa kullu caam wa antum bi khayr taqabbal Allahu minna wa iyyakum salih al-a'mal عيد ونكسن وأنا نبليو مناسبة عيد أو جذب جودهان عالم الإسلام قال هم بعض القوى شاف كالصومالية خاصة تدوينها جمهورية الصومال الآن جودية بدون مركز تواجد شغال وحنا الله هاي عيد مبارك عيدنا waxaan leeyahay ku gaara bashbashiyo barwaaqo ilaahayna waxa ka rajaynayaa horumarka inuu inooga sii kordhiyo inta imika uu yahay ee barwaaqada ah waxaan rajaynayaa in ilaahay isaga awood leh uu naga aqbali doono baryada iyo ducada waayo isaga ina amray oo ina yiri ibarya والدي كأجيب دوناي وحلاها سوماليلاند بالكستا هي سنة كستا هي مركستا هي وقت كستا وحاو دريميا قفك عقلي يقرات كليه هالمركة iyo tadawurka ka socda dhinaca ay u tahayba haday dhinaca waxbarashada tahay haday dhinaca dhaqaalaha tahay haday dhinaca maamulka tahay haday dhinaca amniga tahay beesha caalamkana runtii waxaan aad iyo aad munaasabada ciidda awgeed aan ka rajaynayaa oo aan leeyahay waa ku baqaysheen oo waa hagrateen اعترافك جمهورية الصوماليلاند runtii waanu buuxinay dhammaan shuruudihii looga baahnaa dawladnimo iyagana waxaan ka codsanayaa inay ku degdegaan oo ay hadday hore dib uga dhaceen ay iminka u diyaargaroobaan sidaa u aqoonsan lahayn jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii dawladaha jaarka iyo kuwa fogiba ay ka dherigsan yihiin inaynu buuxinay wixii shuruud looga baahnaa ee xukuumad lagu aqoonsan lahaa iyadoo aan runtii rajaynayo shacbigan inuu isku tashaday dhibaato badan oo soo martay kadib dhiig badan oo daatay maantana waa dareemaysaan inaynaan uga keen dal burburay dhulkii aanu ku garaadsanay guryaha gaagaaban ka dhisnaayeen maanta mid walba waxa ka dhisan sare dhaadheer waa wax Ilaahay loogu mahadnaqaa aqoontii iyo tiknoolajigii iyo waxbarashadii iyo dhaqaalihii intuba sare u kacaya oo ay sii socdaan oo aad bil walba dareemaysaa sanad walba dareemaysaa taana waxaan leeyahay runtii cidda aan bini aadamka u mahadnaqini ilaahayna uma mahadnaqdaan leeyahay waxaan leeyahay xukuumaddan maanta jirta markii ay talada qabatay ee hormuudka u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo aynu dareeminay halkii waxa ay udub kaga tagtay maantana waa arkaysaan halka ay wax waliba marayaan waxay dawladda qabsadaan waxa ugu adag waa wadooyinka horumar dallo waxyaabo ku xidhay wadooyinka dekedaaya waa kamid ah madaarada iyo xilaal maala madaarada sida loo qurxiyo waa aragta dekada sida maca amnigeeda iyo securitykeeda loo sugay waa aragtaan wax looga bedelay wadooyinkiina waa aragtaan wadadii ugu dheereed oo ceeri gaaba maalin dhaweyd ayaa qolayga soo hadashay wadweyne waxay weeyaan burcaan ku soo soconaa wax ka yar qadar saacada ay ugu yimaadeen halkii ka kicin maxay sidoo baan ku waxay weeyaan waxaan isay gaari yar oo noocan loo yaqaan noohada ee yaryar gaagaabana الحمد لله رب العالمين
إلهي القرآن كيسا كريم كاوحكوري لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أقول هذاك وعيد هذاك وي وحان لها وددي بلي قبل له واركتا تيسل عليه واركتا دوغي عدا واركتا بورمي هرقيسا واركتا ووقتي لو سعون جري وقف كنت بورما كسو قراعدو كنت بروعك خديه باي مكا لو بدي هو halka saaxiibada iyo ahbaabtii dadka shaqada wada lahaa ay inta ku sheekaystaan dib u carabaan hadana tii ergaabana wada aragtaa maalin dhawaan maray alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa dareemaysay qaabka ay wadadu u socoto halkan magaalo yar ee wadada halka looga leexdan tagay cabaar baan raacay mar gaaran u timirna waan lugay kaliday baan ahaan iyo faamigayga ilaahay baan u mahadnaqay yaani qaabka ay u socdaan taana runtii waxa maada koowaad leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud oo runtii la oran karo isaga hanaanka horumarineed jeexay waxaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland dadku wuu tarabal badan yahay ujeedadeena weyn iyo goolkeenu waxa weeye waryaayna dhaqi kara in wadi kara wax noo qaban kara taasana hadalka guddiga uga dhigayaa haddaan dib ugu soo noqdo gobolkan aan odagiisii labaad ahay waxaan aad u rajaynayaa amniga horumarka iyo sida ilaahay u barwaaqeeyey يعني قف كستو عقل اللي هو كحمد النقيا حنا الله هاي بني آدم تبشم وايو إلهي مو يعني واحد ما يسترني مجران إلهي بأمر كيسو يكون بين الكاف والنون فيكون روح الله هاي هرمر باك الصعودة بل دبو ايغا قريه نوبت كتشوغا لبدي قريه سيقبا مدبا انترنت كوحلين وايا أولاد ديريري iyagoo online ay halka ku jiraan waa arkaysaan aqoontu soo socoto ardayda dugsiyada waa arkaysaan dhismo sidoo kordhayo waa arkaysaan horumarka ka socda waa dareemaysaa 3-4 qof baa ii sheegay bisha gudaheeda qof waliba uu leeyahay fiigna waan taagaya cagafna waan soo kordhiyay ujeedadu waxa weeyaan dadka horumarkooda halku marayo in qof waliba mashruuc yar oo wax ku rito wax kala soo baxo oo beertu kaga kaaftoomo wixii dawladda ka imanayay ayaa maanta aad dareemaysaa burcano ama togdheer ama burco waa caasimadii labaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii horumar ballaaran baa ka socda dhinaca amniguna 100% ciidamada ku shaqada leh iyo dhammaan laamaha dawladana waan u mahadnaqayaa khaasatan hay'adaha amniga oo si aad iyo aad u sarreeyay runtii u suga amniga waxa Ilaahay loogu mahadnaqana weeye waxaan intaa ku daraya waan leeyahay cid kasta oo maalin ciideed hadday qolo tahay hadday qabiil tahay hadday jifo tahay hadday beel tahay hadday laba qof tahay nin iyo horidiisina ku dheh waxaan ka codsanayaa dadweynahan odayga oo ahay in la is saamaxo waa saamaxa ayaa wax walba ka khayr badan cunfiga iyo colaadda iyo uurxumada iyo waxa ma taraan waxaan leeyahay aniga oo odaygii labaad ee gobolka kuma hadlayo magacii gobolka horta xukaamtii baan leenahay saamaxa waana khaldamayna waana asiibana oo saxmayna cidii wax naga tirsataa waxaan leenahay itaalkayga dadaalaan musliin horta saamaxa waxaan kaloo leeyahay guud ahaan waxaan anigu iga cafiyo cid kasta oo ay waxna kala galeen oo aan wax u tirinayay waxaan kaloo raacinayaa cid kasta oo wax isku haysa haday beela tahay haday qoysas tahay haday jifooyin tahay in cagta dhulka loo dhigo la sugaamniga xukuumadda la taageero la eego danta ummaddu maxay tahay ee aan danta shakhsiga qura leegin la iska ilaaliyo reer tugdheero burla duul iyo caatifad baa laynagu tilmaamaayay inaynu waayeelnimo iyo waxgaradnimo muujino oo waayeelku guntado oo sidaa imika noola shaqeeyaan ay si ka sii fiican ay noola shaqeeyaan dhaliishayada noo sheego nala toosiyo nalala taliyo intaan meesha joogno diyaar baanu nahay وخالد بكيلة شبكة عالمية اعتراف نيوز برعو